abuukar mahdi youtube-kiisa markii la jabsaday yaa jabsaday hadda ani ada leewaay dadweyne dhegaystayaa ninkan ya zool abo yaa jabsaday waree adaa jabsatay remember abuukar mahdi waa shakhsi aad u beer jilicsan waa shakhsi aad u gacan furan waa shakhsi haddaad oysid kula oynaya hadday dhibaato ku haysana ku maaragtay dhibaatadaada wax kala qaybsanaya zool adiga hataa waa ogtahay inaan ilaaha aamini ku aamini adiga hataa inay khiyaantay waa ogtahay zool ugu dambeyn dagaalkii u dhaxeeyay jilayaashan caanka ah iyo sidoo kale abuukar mahdi ayaa mar kale hawada sii galay waxaana ku soo biiray dadyow fara badan oo caan ah haddaba daawadayaal muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa basbaas oo mar kale afka furtay kaas oo kashifay sira muddo badan qarsanaa iyo sidoo kale cabdinaasir soolla oo garab istaagay abuukar mahdi sheegana waxyaabo badan oo ay ku qaldan yihiin fanaaniinta iyo sidoo kale jilayaasha haysta haddaba daawadayaal warbixintan waxyaabo badan ayaynu ku kashifi doonaa hase yeeshee inta aanan kula wadaagin fadlan marka hore muuqaalka leegaray sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena adiga oo janaalkeena subscribe daawadayaal waxaad in badan la socotaan dagaalka u dhaxeeya abuukar mahdi iyo jilayaasha caanka ah horay dhowr muuqaal ayaynu uga diyaarinay hase yeeshee maanta ayay u daran tahay waxaa mar kale afka furtay basbaas oo ahaa jilaa caan ah kaas oo la soo shaqeeyay abuukar mahdi haddaba xalay ayaa waxaa soo baxday xalqad cusub oo ku saabsan riwaayadihii abuukar mahdi uu soo dhigi jiray janaalkiisa waxaana mar kale ka soo muuqday basbaas oo ay isku dhacsan yihiin abuukar mahdi haddaba basbaas ayaa afka furtay waxa uuna sheegay in aan lagu shaqaysan karin maadaama uu mar hore ka tegay shabakada abuukar mahdi sidoo kale basbaas oo afka furtay ayaa waxa uu sheegay in qofka ka dambeeya in abuukar mahdi uu sidan u dhaqmo uu yahay cabdinaasir ismaaciil oo ku magac soola bidaar waxaana mar walba difaaca abuukar mahdi isagoona fanaaniinta xaqooda lagu tumanaya taageero haddaba waa kan basbaas oo afka furtay waxyaabahaasna kashifaya okay ugu horeynta waa isku day inaan ku soo waco maasha allah facebook blog ay ku saartay and telefonkana blog way so okay inta isticmaali kartid ama igu shaqaysan kartid waa igu shaqaystay waa isticmaashay hadda iyo dan abuukar mahdi walaalow macaano clip aan ku jiro youtube-ka ha soo dhigin ma fahamtay ama kala dhiishi dacwo tagtana wallahi diyaaraan nahay I can get lawyer no problem rakaati iyo hinjawaadna ma aha run aan kuu sheegaa kooxdu waxaan sheegay aniga oo on youtube-kana ku jira 28 November inaan ka baxay wixii ka dambeeyo without my permission ma soo dhigi kartid not you not him not anyone sakas zola mid kalan ku sheega adiga waxa u malaysaa inaan aniga waxba ogeyn war firi hatta waxaan ogahay mataqaana abuukar mahdi aad leedahay 20 sano aqal abu maxabbeen u sheegayno ilaahay ma ka cabsatido dhageyso zola midaan ku xasuusina dhagahaada ideemi indhahaadana fur dhageyso 2016 maxsuusada markii socday qoto abuukar mahdi youtube-kiisa markii la jabsaday yaa jabsaday hadda ani ada leewaay dadweyne dhegaystayaa ninkan ya zool abo yaa jabsaday waree adaa jabsatay remember markaa jabisane mataqaana oo ilaah hadduu kuuran yahay waxaad ku nabtay rashka ka shaqeynaya university tv yes or no beentay miya sug mid kalaan kuu sheegaa mid cadeynaysaan kuu sheegaa weliba okay taas waxaa cadeynaysaa mataqaana abuukar mahdi مسكين الله مولى أمك وكون فيري نكتيسة يا أبوكرا وحلو ده متقانا وربال كان خوف كان سمين كان كوسو علين كان مالها زولا كوسو علين كان زولا اللي هشي يا كل هشي سي مو فهمت شم بقول باونا كقالة أبوكر مهدي أبوكر بما شجعني يا بما شجع أبوكر زولا مسيس شم بقول باون يا ويوتيوب كوسو علين السيجا حق ريي زولا حق ريي يوتيوب أساج جبسري شم بقول مو كاقاتي لا اسكده رشكا لو داي ادينا وا امنتي I'm very sorry my brother it was a secret
haddaba daawadayaal dad fara badan ayaa waxaa isleeyihiin maxaa ka jira in cabdinaasir Soolle uu taageeray Abuukar Mahdi. haddaba arrintan waa rasmi oo waa caddayn, waxayna idinkaga haynaa muuqaal ku saabsan Cabdinaasir Ismaaciil oo soo fadhiista Facebookiisa isagoona si cad u taageeray Abuukar Mahdi, sheegana fanaaniinta ku dhegan in aysan waxba ku haysan oo ay ka been abuurayaan. wuxuuna sidoo kale ammaan kala dul dhacay Abuukar Mahdi isagoo aan gartaan dhexgelin wax cadayna raadin, waxaana iska cad inuu meeshaasi laaluush iyo waxyaabo kale ay soo galeen. haddaba waa kan Cabdinaasir oo ka hadlaya Abuukar Mahdi. Abuukar Mahdi waxaan filayaa dad aad u fara badan oo baraha bulshada ku jira, TV-yada daawada inay aad u yaqaanaan. waa nin dhalinyaro ah aad u wanaagsan intaan ka aqaano, waayo qofka intaa ka taqaanid un baa la sheegaa. isla markaana aan aqaanay ilaa iyo muddo 20 sano ah. waxaan arkay dhowr jeer sanado ka hor waxaan arkay Abuukar oo axsaan isagu uu sameeyay mar walba ay ku soo laabato lacagtaan arkay social media. dadku waxaan mar walba yiraahdaa Abuukar waxaan yiraahdaa wax walba oo social media lagu soo yiraahdo qof ka hadlay magacaaga sheegay ku aflagaadeeyay jawaab lama siiyo. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa qofka markuu aaminsan yahay ama waa xaasid ama aqliga ayaa ka batay, wax u dhaxay ma jiro. sababtoo ah dadka baraha bulshada ku jira noocay doonaan ha ahaadaan, hadday soo fadhiistaan adiga ku aflagaadeeyaan, reerkaga aflagaadeeyaan, been lagaa sheego, a silence is a killer, ama aamusnaanta waa bistoolad ama xabad qofkaas ku dhacda. marka Abuukar waxaan u arkay dhowr sano ka horna dad waxaan arkay oo mar walba Abuukar Mahdi xagxaganayo la dagaalay. dabcan uma baahni magac inaan sheego, umana soo fadhiisa Abuukar meesha aan ku difaaco, laakiin reality intaan ka aqaan. marka Abuukar mar walba message aan u duubaa, Abuukar wax kastoo lagu soo yiraahdo afkaaga waa inaad ka adkaataa baan yiraahdaa. laakiin Abuukar Mahdi ayaa qof intuu waxday soo istaagay oo dhibaateeyay oo meel u soo fadhiistay. anigu 20 sano aan aqaanay Abuukar weligay kuma aan arkin. hadduu qalad galana waa soo fadhiistaa, wuxuu yiraahdaa haliga raaliga saas oo kale. marka Abuukar kulli waan ku jeedaa, way daawanaysaa ku jirtaa. anigu shakhsiyan Abuukar Mahdi intaan ka aqaano waa shakhsi aad u beer jilicsan, waa shakhsi aad u gacan furan, waa shakhsi haddaad ooshid kula oynaya, hadday dhibaato ku haysan ku maaragtay dhibaatadaada wax kala qaybsanaya. marka isku soo wada duub, dagaalkan u dhaxeeya shakhsiyaashan caanka ah ayaa faraha ka sii baxaya, waxaana la ogsoon yahay haddii uu sidan ku sii socdo in ay soo bixi doonaan muuqaallo iyo sidoo kale codad sir ah oo ay dadkani keedsanayaan. haddaba waxaan rajay doonaa in dadkan la kala dhex galo intaysan ceebtu halkan ka fogaan. sidoo kale Abuukar Mahdi waxaan kula talinaynaa in fanaaniintan uu xaqooda iska cunayo aysan ahayn wax saxsan oo dadku ay ku taageeri karaan. haddii dadkan aad rabtid inaad wejigooda ku shaqaysato, waa in ay waxa ay u qalmaan aad siidaa, haddii kale maahan inaan si aad doonto ugu shaqaysato.